بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sidii aan xalaqadii hore kusoo sheegnay waxaan nidhi mar kastoo zamanka nubuwada laga fogaado waxaa dhaca in xaqaa'iqdii cadcadaa ee waaweynaa inay soo koobmaan oo ay soo ururaan kadibna ay doorsoomaan oo macnihiiba uu isbedelo soo ururkaa iyo soo koobnaantaa darteed ay isu bedelaan waxaana soo sheegnay soo ururkaa iyo soo koobmidaa iyo doorsoomidaasi iska dhalanayane waxa ay gaareen arrimihii asaasiga diinta waxa ay gaareen oo tawxiidkii iyo iimaankii sidoo kale shirkigii iyo kufrigii in laga digtoonaada ahayd ayaa macanadeedii mugdi soo galay oo ay doorsoomay ilaa loo baahday dib in loo faydo oo loo caddeeyo haddaba waxaan rabaa insha allah mustaciinan billaahi anoo ilaahay u kaalmaysanaya inaan bal caddeeyo ka bilaabo xalaqadeenan maanta inaan isweydiino waa maxay shirki maa macna shirk inaan insha allah isweydiino kelimada ashirk yani waxaa asalkeedu yahay sharaka ama macna sharaaka iyo asalkeedu yahay oo af carabi weeye luqa carabi weye kelimada iyada waxayna tilmaamaysaa yani waxa la yahay sharaaka wadaagid haddaan af soomaaliyeyno wax wadaagid waxaad maqashaan shirkad ama sharika waxa weeye waa shay ay isla wadaagaan laba qof iyo in ka badan laba qof iyo in ka badan ayaa sharaaka la yidhaahdaa ama shirka la yidhaahdaa marka hawshaasna ay ku sameynayaan waa hawl isla wadaagid runtii marka waxaan dhahnaa shirkadaasi waxaa ka kooban hebel iyo hebel iyo hebel ayaa ku madaysan shirkadda magacaa leh haddaba ereygaasi markii luqadda carabigiisa uu ku yahay yani musطalaxaan ama erey beexin ahaan maxaa shareecada u taqaanaa ereygaasi ereygaas shareecada waxay u taqaanaa waxa weeye in allah subxaanahu caza wajala wixii uu xaq u lahaa oo ilaahnimo ahayd ama rabbinimo ahayd ama in loo addoon noqda ahayd oo allah lala wadaajiyo cid kaleeto waxaana caddeeyey muxuu ahaa sida ma arkaysa nabiga xadiis ku yimi sal alla alay wasalam an tajcala lilahi niddan ilaahay wax u dhigmo inaad u yeesho marka waxa weeye shirkigu in yani cid kaleeto allah lala simo see loola simaya allah subxana wa tacaala bini aadamka o dhan ama makhluuqaadka o dhan way ogsoon yihiin in yaroo mataqaanaa kibir iyo aabi u yeelaysa moogiyey in allah uu yahay kii abuuray ayaguna addoomi ay yihiin makhluuqaadka o dhan oo ayaa dhana wada qiraaya allah kii abuuray inuu yahay oo abuuritaankiisa lama inkirsana inuu ilaah yahayna lama inkirsana in uu mudan yahay in la caabudana lama inkirsana oo fitrada insaanka iyo makhluuqaadka kownka dhan baa ku dhisan inay addooma yihiin see marka allah wax loola simaya waa wax ka imaanaya jaahilnimo iyo garasho xumo iyo tacliinta shayطaanka ka imaanayo oo dadka tusinaya allah xaq wuxuu u lahaa subxaanaه wa tacaala in loo gaar yeelo in la maleeyo cid kaleeto inay la wadaagto la maleeyo oo sidaas markaa qofkii uu ilaahay ciddaa kale ula simo wuxuu ilaahay lahaa u sii cidaas marka taa ayaa shirki la yidhaahdaa sida aad ku arkayna macnaha yani ilahay qur-aankiisu ku yihi falaa tajcaluu lilahi andaadan wa antum taclamuun allah ha u yeelina wax u dhigmo allah ha u yeelina wax allah la samaysaan ha samaynina wax la samayn ma jiraan subxana wa tacaala isagaa idin abuuray subxana wa tacaala isagaa idin abuuray marka horta markii nuxurkaan u tagno shirkiga macnihiisa waxa weeye in allah subxaana wa tacaala wax u dhigma yani allah in wax lala simo subxana wa tacaala isagoo loola simayaa allah subxaana wa tacaala xuquuqda uu leeyahay oo uu ku leeyahay makhluuqaadku abuurtay waxaa ugu horeeya ama ugu saldhigsan inay caabudaan asaga subxana wa tacaala inay isaga caabudaan oo addooma u noqdaan cibaadadaas haba loo abuurayba ujeedada jiritaankoodaba ay tahay cibaadadaas iyada macanaheedu waa ballaaran tahay waana macno badan tahay oon is leeyahay si gaaray u baahanta in looga hadlo cibaado iyo sifaalaheeda looga hadlay u baahan tahay
haddaan nuxurkeeda soo koobno waa isdhiibid iyo addoon noqosho iyo uduloobid weeye cibaadada iyada sida lagu abuurayba sideedaba oo macnaheeda yahay sayid kaleeto ama ma arkaysaa hogaamiye kaleeto ama amarkaaga iyo mulkigiisa ama lahaanshihiisa allah oo keliya iskale siday waaqac u tahay adna niyadaada iyo qalbigaaga iyo noloshaada iyo fikirkaaga iyo hamigaaga macnahaas uu ku dhismo allah keliya inuu ku ahaaday sayidkaagii muxuu ahaa macbuudkaagii kii aad jeclayd ee runtii lahaa taladaada isaga inaad ka cabsatay ahayd nafci iyo durka isaga keliya ku hayay intaa inaad allah u qirto iyo wax kastoo karna addoonnimada ayaa uu kaa doonaya allah subxaanahu caza wajal intaa marka wax ka mid a haddii aad allah cidaan hayn aad siiso ama aad allah cidula sinto oo tiraahdo allah subxaanahu watacaala iyo hebel baa isla le aad tiraahdo macnaheedu waa shirki ficil ahaanna u samayso yani macnaheedu waa shirki waa ilaahi subxaana watacaala asagoo ka qisoonaya qoomka gaalada ama bini aadanka kufriga ka qisoonaya wuxuu yihi wajacaluu lilahi andaada liyudiluu can sabiilih qul tamatacuu faina masiirakum ila annaar waxay allah u yeeleen subxaana watacaala wax la siman ay ilaah u yeeleen oo ay runtii wuxuu allah mudnaa cid kale ay siiyeen marka ilahi wuxuu subxaana watacaala kuleeyahay iska raaxaysta adduunyada abaalkiina ama masiirka u dambayn doontaan waa naarta iyo cadaabka weeye waxaa nabigan la yiri sal ly slam xadiidu muslim bukhaari wariyeen wuxuu yihi man maata wahuwa yadcuu min duuni illahi niddan dakhala annaara qofkii geeriyooda isagoo ilaahay sukadiisa miduu allah la simay baryaaya naarta ayuu gelayaa rawahu muslim wa bukhaari marka ficlan marka shirkiga macnihiisa oo kooban haddaan sheego waa intaa inaad allah wax la sinto weeye subxaana watacaala hadda allah wax la sintane runtii waxaa tahay qof ilaahay u shariig yeelay waxaa la samaysa waa maxay xuquuqda ilaahay uu leeyahay inaad u gaar yeeshay ahayd cid kale aadan siini ahayd haddaad ilaahay cid kale ula wadaajiso macnahaasi waa shirki xuquuqdaasi maxay tahay intee baaxadeeda la eg tahay macaanidii xambaari karta waa maxay waa mawduuc sidiisa u baahan inaan ag istaagno insha allah qeybaa soo socona ku cabiri doonaa waxaan leeyahay in laga digtoonaado weeye in allah subxaanahu watacaala qalbigaaga iyo niyadaada noloshaada iyo fakarkaaga camalkaaga iyo hamigaaga allah inuu la gaar noqduu rabaa isagaa ku abuuray isaga keliya addoon u tahay cid kale inaad la wadaajiso shareecada waxay u taqaanaa ficilkaasi waa shirkiguna abaalkiisa sida aayaddu ay sheegtay xadiidkana uu noogu soo khatim waxa weeye naarta ayaa lagu gelayaa darsigana soo socdaan insha allahu tacaala ku faahfaahinayna